xasuusta badan ee aad xasuusato waqti tegay waxa ay kaa dhigaysaa fulay iyo inaad yeelan kari weydo karti cusub oo aad kaga hore uga dhaqaaqdo meesha aad taagan tahay. U oggolow naftaada inaad kufto haddana aad kacdo, maxaa yeelay waayo aragnimada dhabta ah ayaa timaada markaad duruufaha isbarataan. iska jir isla weynida, tusna dadka inaad iyaga oo kala tahay heerka doonta aad gaadhide. waayo alle ma eega qiyaamaha wejiyada kuwii isla weynida badnaa. xasuusna waana in Xaawo iyo Aadan ina wada dhaleen dhammaanteenba. maalin kasta oo cusub waxay fursad kuu siinaysaa inaad noqoto muslim wanaagsan. lamaanaha nolosha rajada fiican ka lehi waa dad ay ka buuxaan hamiyo wax ku ool ah iyo waxqabadyo karti leh. kulligeen bulshada ayaynu dhaleecaynaa innaga oo ilowsan inaynu ka mid nahay bulshada. lamaanaha xidhiidhkoodu wuu waaraa haddii ay ku mashquulaan riyooyinkooda, balse haddii ay iyagu dib isugu mashquulaan wuu soo gaabtaa xidhiidhkaasi. waxaa laga yaabaa inaad murugo iyo xanuun dareento mar kasta oo aad aragto qof aad muuqaalkiisa ku farxi jirtay balse ku xumeeyey. jacaylku waa webi biyo macaan leh, keliya takacab, laakiin iska ilaali inaad ku dhacdo. dadka waxa ugu ayaan daran kuwa aan dareemin nimcooyinka Ilaahay siiyey ee ay ka mid tahay neefsashada, laxaadka, miirqabka. ogsoono wax kasta oo aanad ka maarmayn cidna Ilaahay kuguma soo dhiibin ee waad haysataa. rabbi xuska rabbi ayaa quud u ah qalbiga, indhuhuna way ku doogsadaan, nafsaduna waa ay ku faraxdaa. ee xasuusnow dikriga Ilaahay, hana ka daalin diinteenna macaanka badan. waxaan in badan ku mashquulnaa bedelidda iyo qurxinta dharkeenna, inagoo badankeennu hilmaamno inaynu bedelno dhaqamadeenna iyo dabeecadaheenna xunxun. waxaa laga yaabaa inaad murugo iyo xanuun dareento mar kasta oo aad aragto qof muuqaalkiisa uu ku farxad gelin jiray balse ku xumeeyey. caqabaduhu geeri ama dhimasho ma keenaan, ee dilaaga quruxda noloshu waa murugada iyo welwelka. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.